hay-adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida ayaa 8 cagaf oo kamid ah boqolkii cagaf ee xukuumaddu deyn ahaan u soo iibisay si ay uga faa'iideystaan iskaashatooyinka beeraleyda ku wareejisay qaar kamid ah iskaashatooyinka lagu wareejiyay cagafyada ayaa kuwa soo maray shuruudihii loo dhigay isla markaana bixiye deynta qaybtii loogu talagalay inay sii bixiyaan iyadoo inta kalena ay ku bixin doonaan muddo cayiman oo la siiyay. Axmed Sheekh Maxamuud agaasinka xidhiidhka dadweynaha hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida ayaa sheegay in cagafyadan ay qayb ka yihiin cagafyadii deynta loogu talagalay isla markaana lagu qaybiyay iyadoo loo maray shuruudihii loogu talagalay isla markaana ay yihiin deynta lagu siinayaa mid aan wax riba lahayn. maanta waxaa fursad noo ah inaan qaybinay qayb ka mid ah cagafyadii iyadoo la taraacayo nidaamka iyo qorshaha xukuumadda in kor loo qaado wax soo saarka dhinaca beeraha. hay'adda adeegga lacagaha yaryar iyadoo kaashanaysa xafiiska beeraha waxaan maanta qaybinay tiro cagafya oo dhan 8 cagaf annaga oo marnay nidaamka loo yaqaan muraabaxada ee waafaqsan shariicada islaamka. cagafyadani dadka procedure-ka dhan bay soo mareen qiimihii muxuu ahaa lagu iibinayay boqolkiiba 50 ay sii bixiyeen boqolkiiba 50 kalena waqti ayaa loo qabtay inay ku soo bixiyaan. marka waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socdana qaybo kale oo kamid cagafyadaas aan qaybin doono. waa kuwii ugu horreeyay la qaybiyo weeyaan. marka maalmaha soo socdana procedure-ka qaybta dhamaysataaba sidan oo kale aan u siinaynaa si ay uga sii faa'iideystaan wax soo saarka beeraha ee u taagan. iskaashatooyinka beeraleyda ee lagu wareejiyay cagafyadan ayaa tilmaamay inay wax badan ka tari doonaan wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale shaqo abuurka bulshada kaleba. waxaan ahay dadka nasiibka oo helay maanta in ay ka qayb qaataan cagafyadan ay bixisay dawladdeena khaasatan wasaaradda beeraha iyo xafiiska microfinance. waxaan qaadatay midigteena ah oo Orsus la yiraahdo. cagaftan aanu iibsanay laga iibiyo dawladdu ay noo keentay waxaanu ka helay fursad deyn laga sugayo muddo 2 sano dhan. waxna waa sii shubnay aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda maarinta ay samaysay. waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo anaguna aan deyntana soo celino arintana aanu ka faa'iideysano haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aanu la wareegno cagafyadan oo aad boqolkiiba boqol aan ku faraxsanahay oo aan boqolkiiba boqol aan muxuu ahaa aan soo dhaweynayno. waxaanan mahad balaaran Ilaahay mahad u soo jeedinaa bahwadaagta xafiisyada arrimahan ka qayb qaatay. waxaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol anaga cagafyadeedu waxa weeye waan in wax ribo diin sharci islaamka ay waafaqsan yihiin macnaa wax ku jiro oo riba iyo midna malaha. waxaan aad u Ilaahay ka bareynaa inuu noo khayro oo tacabkii hore iyo beeraleyda aan nahay inaan wax ka bedelo maadaama gaadiid cusub aan helay shacabka aan ka soo jeednana aan shaqo abuur aan u sameeyno boqolkiiba boqol aan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa. cagafyadan ayay xukuumaddu ugu tala gashay in wax laga qabto kor u qaadida wax soo saarka beeraha iyadoo bulshada lagu siinayo qaab deyna si ay u bixiyaan muddada loogu talagalay.